how to start application window. Marka horeyso sida aan usoo kicinayno application window-ga sida ula falgelina. Marka cashirka waxaan ku qaadanaynaa file menu iyo application window. Step 1 waxaa leenahay double click. Step 2 waxaa leenahay right click. kadibna waxaa leenahay open. Step 3 waxaa leenahay click. hal mar aan dooranaynaa kadibna waxaa leenahay enter. Step u dambeeya waxaa leenahay control iyo E. waa kuwa marka software-ka aad rabto meeshaan kasoo furane. kaas halkaasa ku dhaafaynaa. waxaan isticmaalaynaa file menu. file menu waxaa kusoo muuqdaa dhanka bidix halka sare. waa kana file menu. file soo fur marka info waxa uu gaar u yahay office-ka. keliya office-ka lagu isticmaalaa. new waa barnaamij cusub iyo soo fur qayb meel cusub iyo soo fur. hadda new ku dhigdho waa kana anaa normal ay soo furay koona kala soo furaya. waa wax qayb diyaarsan way haduu ma baahnin. sidoo kale isla meesha ku soo laaban. intaan meesha ana dhaafin halkan balaag cusub soo furo kartaa. document balaag cusub mid hore u diyaarsan soo furo kartaa ab diyaarsan. waa kana soo ma jeed. okay. sidoo kale markaa waxaa qaadanaynaa open. open micnaheedu ayaa waxay tahay meel cashir ah hore u diyaariday oo save garayday dib u soo fur. kulfana hadda waxaa soo furay whiteboard waa laga soo furay. waayahay sidoo kaleeto save. save micnaheedu ayaa waxay tahay inaa xog hore u save garayday inaa xog aad save garaydo waa macna. save macnaheedu waa inaa xog aad save garaydo. hadda aniga waa ii save garaysantoo save uma baahnin. sidoo kaleeto save as. save as ayaa waxay tahay aydana inaa waxaad hore u save garayday oo hore meel aad u dhigatay haddana dib in ugu soo laabato wax aad ka beddesho kadib dib aad u save garaydo haddana adoo xogtii ay lagu kala jebinayo qayb ewl hore u save garaydo save ahead iyo hadda tanoo aad save as aad tidhi adoo labadaas u kala jebinayo si ay xogtii horena u badbaado tan haddanana aad u hesho. hadda meeshaas ff ay ku qoran tahay waxaa ku qoraya ayadana ed. waxaa ii dhigtaa desktop save memory. kii horeta maxaa ku qornay ff kana maxaa ku qoran dd. soo ma jeed. waaye sidoo kaleto waxaan isticmaalaynaa print waa in wax la daawo. soo ma jeed. hadda warqadda aan isticmaalayna saan u istaagtay saan kusoo bix. marka print hadda ka sheekeymayno ay cashir gaar ka duubi doonaa insha allah. sidoo kaleto waxaan isticmaali doonaa share. share macnaheedu ayaa waxay tahay in xog la wadaago. waayahay
sidoo kaleeta export ma taabanayno marka la qaado doonaa close waa ina la xiro close ayada ayaa waxay tahay inaa documentigii aan kuu furnay documentigii kuu furnay in la hadda waa la xiray oo lama isticmaali karaayo documentigan lama isticmaali karaayo si aan usoo furo waxaa lahay control iyo o waaye sida meesha kusoo laabo accounting in account la sameeyo waa option ayadana meel kale ku qaadan doona hadduu ilaahay cashir aan hayna ku qaadan doona oo waayo sharxad dheeraad u baahantay cashirka inuu dheeraada dooni maayo halkaas ayaan ku qabanaynaa cashirada dib ha loo muraajacay insha allah waxaan idin rajaynaa guul waxan